kulan wacan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulshooyin arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifu ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa gabdho laga badbaadiyay in ay maraan gudniinka adag ee fircooniga, haween laga joojiyay shaqooyin ay ka dabari jireen nolosha iyo waxbarashada carruurtooda, iyo warbixin aan idinkaga hayno dhibaatada ay dhalinyaradu ku qabaan guurka xilliga ay shaqo la'aanta yihiin. aan ku bilownay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo deegaanada hoostaga waxaa si xoogan uga jiray sanadihii la soo dhaafay gudniinka fircooniga ah, taas oo dhibaatooyin ay kala kulmeen haweenkii lagu sameeyay. balse waxaa sanadkan sii dhammaanaya laga badbaadiyay in ka badan 20 gabdhood kadib wacyigelin kooxo dhalinyaro ah oo la dagaalama gudniinka fircooniga ah ay sameeyeen. faham badan oo ay dadku ka qaateen waxaa suuragal noqotay in gabdho badan aan lagu samaynin gudniinka fircooniga ah, halka kuwa kalena laga badbaadiyay iyaga oo xaaladooda caafimaad ay aad u liidato. Shukri Baryare oo Beledweyne ku sugan ayaa soo jeedinaysa warbixin ku aadan. tan iyo 2016 dhalinyaro u badan haween ayaa magaaladani Beledweyne iyo deegaano hoos yimaada ka waday wacyigelin la xiriirta sidii gabdhaha yaryar looga badbaadin lahaa gudniinka fircooniga ah oo dhibaato badan ku haya haweenka. Maryan Cabdulla Xasan oo ah gudoomiyaha ururka ka hortagga gudniinka fircooniga ah ayaa sheegaysa in wacyiga bulshada wax badan iska bedelay sanadihii dambe, taas oo muujinaysa in sanadkan sii dhamaanaya ay ka badbaadiyeen gudniinka fircooniga ah in ka badan 20 hablood oo da'doodu u dhaxayso 7 ilaa 13 sano jir kadib wacyigelin badan oo ay sameeyeen. sidoo kale waxa ay sheegtay in ay jiraan tiro ka badan 25 gabdhood oo gargaar ay u sameeyeen kadib markii lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah oo qaarkood iyaga oo dhiig baxaya dadaal uu ururka sameeyay lagu geeyay isbitaallo sidaana ay ku heleen daryeel caafimaad. waxa ay tilmaamtay in hawshan ay sii wadi doonaan inta isbedel la taaban karo uu ka imaanayo fahamka dadka ku nool gobolka Hiiraan ee dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ah, ayna u adeegsadaan warbaahinta gobolka iyaga oo kaashanaya dhaqaatiirta iyo culimada gobolka ku nool. Maryan ayaa Sooma u sheegtay in haweenka Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ay u qabtaan siminaaro ku saabsan joojinta gudniinka fircooniga ah bil walba 3 jeer, taas oo wax badan ka bedeshay fikirka hooyooyin badan oo qorsheynaya inay gabdhahooda u gudaan gudniinka dhibaatada badan ee fircooniga. meelaha wacyigelinta aan ka sameyno waa magaalada gudaheeda 4 xaafadood iyo tuulooyinka ku hareeraysan magaalada. anagoo waliba wacyigelintaasi u sameyno siyaabo kala duwan ama raadiyaha loo marsiiyo. bulshada waxaan wax u dhaadhicinaa ama haweenka sameeyo waxaan wax uga dhaadhicinaa laba si. waxaan adeegsanaa codka culimada degmada iyo sidoo kale codka dhaqaatiirta. gudniinka fircooniga ah oo dhaqan soo jireen u ah Soomaalida ayaa gabdhaha ku reeba dhibaatooyin noloshooda oo dhan saameeysa. waxyeelada ugu badan waxa ay la kulmaan xilliyada dhiigga caadada, guurka iyo dhalmada. Deeqa Axmed Cabdulle oo dhibana u ah gudniinka adag ee fircooniga loo yaqaano ayaa sheegtay in marka laga hadlayo gudniinka adag ay damqato oo ay xasuusato dhibka ay ka soo martay. waxa ay tilmaantay in 40 sano ka hor lagu guday tuulo qiyaastii 15 kiiloomitir u jirta Beledweyne, haddana ay haysato 7 carruur ah oo 3 ka mid ah ay habla yihiin. waxa ay sheegtay in waqtigii ugu horeeyay ee ay caado ku dhacdo ay dareentay xanuuno ay ka mid yihiin dhabar xanuun, kaliya xanuun iyo caadada oo mararka qaar ku ceshoonta. xanuunadaas ay la nooleed oo ay gabarnimadeedii ilaa iyo ay ka ilmo dhamaysay si joogto ah u dareemi jirtay. gudniinka fircooniga nolosheedo dhan way ila qaatay ilaa liigu sameeyay ilaa nolosheedo dhan ilaa iyo aan dhaqmaada ku jirin oo ilmaha dhalaya. dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga waa sida dhinaca dhalmada kaleento qof markuu dhalaayo oo la jarjaraayo, dhinaca caadada kaleento xitaa cudurro badan oo xilli isfakshinaad badan oo soo noqdo dhiig bax dhibaatooyin aad u xoog badan uu leeyahay wax la soo koobi karo ma aha.
Gudniinka fircooniga ah oo dhaqan ahaan Soomaaliya muddo badan ka soo jiray waxaa ku shaqaysta dumar ku nool magaaladani Beledweyne kuwaasi oo qaarkood dhaqaale ahaan ugu tiirsan balse markii ay ka faa'iideysteen wacyigelinta ay go'aansadeen joojinta ku shaqaynta farsamada gudniinka adag ee loo yaqaan fircooniga. Deeqo oo ka mid noqoto hooyooyin dhowr maalin qaatay wacyigelinta ka hortagga gudniinka fircooniga ah ayaa sheegtay inay garwaaqsatay dhibaatada uu leeyahay gudniinkan gabdhaheedana ay ka dhigtay gudniinka nooca loo yaqaan sunniga 20 sano ka hor balse aabaha carruurtooda uu ka soo horjeesaday sida gabdhihiisa loo guday laakiin ay ka dhaadhicisay dhibaatada uu u geysanayo oo ay iyadu soo martay kadibna uu ku qancay. Maama Deeqa ayaa hadda isku dayaysa in ay ka qayb qaadato wacyigelinta oo ay hooyooyinka xaafadaha la degan ay u sheegto in ay ku daydaan iyada si aysan carruurtooda dhibaato u marin. maya sida ani liigu gudi ma sameynin sunnada ayaan u guday gabdhahayga maadaama ani dhibaatooyin badan gudniinkan ku soo maray gabdhahaygani dhibaatada ani aan soo maray ma ku sameynin waxaan ku sameeyay sunnaan u guday ha in badan way jiraan aabeel soo jeeda oo dhahayo gabdhaha sidoo kale inta dhinaca guurka waa ka halaaba ama gabdho waxay noqonayeen halaabay oo sida gabdhaha la dhahayo wicilay dheelan camal noqonayo fircoona loo gudo qofka duu fircoona loo gudo yacni ma aha guurkiisa gadaal oo dhaca camal balse aniga odayga waan ka dhaadhiciyo waxaan dhahay dhibaatada aan soo maray gabdhahaygana ma marayaan asaguna wuu aqbalay. Shukri Bareera Maxamuud, barnaamijka Wadaag, Beledweyne. way mahadsan tahay waryaheena Shukri oo warbixintaas nala socodsiinaysay. marka uu qofka qaangaar noqdo waxaa maangiisa ka guuxaya waxyaabo badan oo ay ka mid tahay in uu guri yeesho iyo in uu ka fakaro ruuxa ku habboon ee u doori lahaa noloshiisa. waa go'aan u baahan taxaddar dheeraad ah marka ay timaado arrimaha guurka iyada oo ruuxa uu gaarayo go'aan noloshiisa dhan saameyn ku leh. guurkana waxa uu u baahan yahay sidoo kale ka fiirsasho iyo in aad si qoto dheer u ogaato ruuxa kugu habboon nolol ahaan. waxaase jirta dhalinyaro badan oo la aaminsan yahay in ay ku degdegeen guurka oo markii dambe qoys burbur ku dhacay. sababaha ugu weyn ee ay dhalinyaradaas qoyska ay uga burbureen waxaa lagu sheegay intooda badan inay tahay inaysan shaqaynin. waxaa jirta kala duwanaansho ay dhalinyaradu ka qabaan aragti ahaan guurka xilliga ay shaqo la'aanta yihiin. Cabdicasiis Macalin Nuur ayaa warbixintan ku eegaya. Cabdiraxmaan Axmed Cabdi aqalgalkiisa waxaa ka soo wareegatay 7 bilood. waxa uu la aqalgalay xaaskiisa Almaas Cabdi isaga oo shaqo la'aan ah kadib markii uu waayay shaqo uu raadinayay muddo 3 bilood ah. mudnaan gaar ah uma kala lahan Cabdiraxmaan guurka xilliga baagamuudada iyo markii uu qofku shaqeeyo waxa uu garab ka helaa hooyadiis iyo aabihiis oo ka taageera marashada iyo masruufka inkastoo uu dareensan yahay in arrintaasi ay culeyskeeda leedahay. Cabdiraxmaan oo ah wiilka kaliya ee qoyskiisa ku jira ayaa tilmaamay in dhibaatada ay bulshada kaga imaan karto ay tahay in xaaska lagu diro iyada oo la sheegayo inuusan shaqeynin sidaas daraadeedna ay ka madax banaanaato halkaasna uu kaga burburo qoyskiisa. waxa uu Soomo u sheegay inuusan helin lacag ka dheeri ah biilka guriga gabadhana ay u baahan tahay inay soo dukaamaysato ama ay aado goobaha dalxiiska isagana uusan awoodin balse ay xaaladdu noqotay si ka duwan fikirkii uu qabay guurka ka hor. caqabad waa la kulmi karaa maadaama qofka uu wax walba u baahan karo maadaama aan karno qofka oo habeenada u baahan tahay shopping iyo ina israacdaan habeenada qaar xataa casho iyo waxa sameeyaan magaalada aadaan dalxiis aadaan maadaama ay tihiin dad oo guurka ku cusub misana aad iyo aad isku jecel misana aadan awoodin wixii wax dheefki maadaama laakiin inta badan waxaa naga saaciido dhanka waalidka. sidoo kale waxaa ka mid ah caqabadaha aan la kulanno in la dhaho qofka oo habeenayda in la dhaho ninkaas maadaama uusan shaqeyn oo hooy canjeerisi ah adigana aad la joogtid taasaa ka mid ah caqabadaha aan la kulmo. waxaa jira in kale oo aan taageersaneyn aragtida Cabdiraxmaan sida Maxamuud Cabdinaasir oo fikir ahaan qaba inaysan habboonayn in la guursado xilliga shaqo la'aanta maadaama uu qoyska kaga burburi karo dhaqaalo la'aan darteed. waxa uu hadda ku guda jiraa shaqo raadis si uu u dadabgalay markii ay u suuro gasho helidda fursad shaqo markaas uu aaminsan yahay inuu xallin karo wax kasta oo ay u baahato gabadha uu guursan doono. Maxamuud waxa uu horay marqaato uga soo noqday kala tagga lamaane ee asxaab ahaayeen shaqo la'aan darteed
isaga oo qorsheynayo inuu guursado markii uu lacag ku filan meel dhigto gabadha uu shukaansadan uu hadda la sii wadaagay. hadda waxaan ahay shaqo la-aan, waxaan muddo wada soconaa gabar xiriir muddo badanna noo dhexeeyey. markaan shaqo helo waxaan jeclaan lahaa inaan dib u midowno oo mustaqbal iyo reer aan dhisano. shaqada marna kuma fikirin inaan micnaha anigoo shaqo la-aan inaan micnaha guursado. waa in badan waa isku dayay, balse shaqada waxay tahay shaqada waxay u baahan tahay dadaal fara badan. marka dadaalkaa ku jira weli. dadka ka faallooda arrimaha qoyska qaarkood ayaa ku dhiirigeliya dhalinyarada inay guursadaan xilliga ay isdabari karaan dhaqaale ahaan, markaas oo ay ka hortegi karaan waxyaabo si fudud guriga uga dumin lahaa. Maryan Cumar oo muddo 6 sano ah ka shaqeynaysay arrimaha la talinta qoyska ayaa sheegaysa in shaqo la-aanta iyo guurka aysan meel wada geli karin, qofkana looga baahan yahay inuu dejiyo qorshe fog ka hor intaysan aqal dhisan. waxa ay tilmaamtay in dhalinyarada kaliya ku fikiraysa siday caruur u dhali lahaayeen in qaar ku daysan rabay asxaabtooda ay kala taliyeen in marka hore helaan shaqooyin kadib ay qorsheeyaan guur ay ku guuleysteen maadaama ay diiwaan gelisay 11 qoys oo arrintaas darteed u burburay. Maryan Cumar ayaa xustay guurka xilliga baagamuudada lagu dhaqaaqo aanan taageero dhaqaale lahayn inuu ku dambeyn karo kala irdhoobid, taasna aysan u wanaagsaneyn labada qof ee isdoonaya, iyada oo kula talinaysa in dhalinyarada aysan fiirin baahida jinsi ee haysa balse ka fikiraan duruufaha kale ee jira sida dhaqaalaha. qofka dhalinyarada haddii uusan shaqo haynin ay sabab ah ku imaato shaqo la-aantaas, waxaa wanaagsan guurka inuu dib u dhigto. caqabado fara badan ka dhalanayo qofkii haddii uusan shaqo haynin, cid caawisana uusan haynin. caqabado fara badan ka dhalanayo ay kamid tahay in reerkii uu burbur ku yimaado, oo markii hore waxaa laga yaabaa jacayl, caatifad in la isku soo raacay, laakiin maalmo ama sanad ama bilooyin haddii la wada joogo waxaas way dhamaanayaan. nolosha dhabta ah loo soo geli doonaa, waxaana ka dhalanaysa in reerkaas uu burburo. in dhalinyaradu helaan fursado shaqo oo ay ku maareyn karaan noloshooda waxay ka dhigaysaa kuwo ku dhiirada guurka oo haatan qaarkood ka hor istaagsan caqabado ay ugu weyn tahay shaqo la-aanta. adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo, adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo, nin dhergiyo nin dhowrqaday andheefay, nin dhergiyo nin dhowrqaday andheefay, isdigiyo laboodba hawli kama dhamaatay, qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala, isdigiyo laboodba hawli kama dhamaatay, qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala. ana dhaawacaygi jacayldhidibkaasaan dhedhedheeliyahay, ana dhaawacaygi jacayldhidibkaasaan dhedhedheeliyahay. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya. haween ka shaqayn jiray dhismaha guryaha dhagaxa ah ee muqdisho ayaa laga joojiyey howlihii ay qaban jireen sababo la xidhiira inaysan awoodin. qaarkood ayaa howshan kusoo shaqaynayay muddo ku dhow 10 sano, waxaana ay ka walwalsan yihiin maaraynta nolosha qoyskooda oo hadda ku dabaraan lacaga dayna. Shukri Caabi oo Muqdisho joogta ayaa soo jeedinaysa warbixintan.
ilaa iyo 15 haween ah oo ku nool Muqdisho kana shaqaysan jiray shaqada dhismaha guryaha dhagaxa ah ayaa xilligan wajahaya shaqo la'aan kadib markii loo diiday shaqadii ay hayeen. Faadumo Maxamed Faarax oo kamid ah haweenkaas oo muddo 10 sano ah ka shaqeynaysa dhismaha guryaha ayaa sheegaysa inay u ahayd shaqo muhiim ah oo ay ka dabarto nolosha caruurteeda. Waxay tilmaamtay in sababta looga ceeriyay shaqadan aysan ahayn mid cad, balse ay u sheegeen kaliya dadkii maamulayay shaqada inaysan qaban karin oo ay dhibaato ku tahay inay ka sii shaqeeyaan dhismaha guryaha dhagaxa ah. Faadumo ayaa sheegaysa in markii horeba aysan u ahayn mid joogto ah shaqadan, maadaama marar ay ahayd mid la waayo, mararka qaarna la heli jiray, haddase dhibaatadaas mid ka daran ay dareemayso. magaaladii aan ku dhalanan iska dhex joognaa waa oon iska joognaa ilaaha mahadda lehe. maalintaan dhagaxa soo helnana ilmahan dabka uga shubanaa, maalintaan soo waayno kafaara qabiilkaas naloo sheegto ama xoog yare naloo sheegtana waan ka soo tagnaa. ilmahana ilmo laygu furay aan u shaqaystaa. dadka guryaha iskale ninaaba dhaha naagu ima soo agrogso karto, nina wuxuu leeyahay nin hadda dabaq dhistay. anagoo shaqadii la bixiyay aan soo istaagnay anigii islaan kaleeto markaan soo roogsanay shaqadiina la baxshay oo nagu daray asaguna yimid markaas. Ragga ka shaqeeya dhismaha guryaha dhagaxa ah ayaa u arka mid aan sahlanayn in haweenka ay wax ka qabtaan shaqadan oo ay culays badan ku dareemayaan. Maxamuud Cismaan Faarax oo kamid ah dadka ay wada shaqeeyaan Faadumo ayaa Sooma u sheegay in shaqooyinkan ay haweenka qaban jireen ay ahayd kuwa kaalintooda ay ka soo baxa iyaguna ay ka caawin jireen qabashada howlaha culus. Waxa uu sheegay in sababaha ay tuhunsan yihiin in shaqada looga reebay haweenka inay tahay in dhismaha ay u badan yihiin ragga oo dadka loo shaqeynaya ay bixinaya lacagta maalinkii lagu shaqeeyo aysan aamini karin in shaqada dadka qabta ay ku jiraan haween, ayna cadaadis dhanka shaqada ah aysan ka imaanin shaqaalaha iyo injineerada balse ay tahay dadka loo shaqeynayo. Maxamuud iyo saaxiibadiis waxay ku soo baraarugeen iyaga oo haweenka ka maqan shaqada muddo 2 maalin ah iyaguna aysan waxba ka qaban karin sida ay wax u dhaceen. waxa aan ka caawinaa oo kale shamiitado kale dhagaxa oo kale markii qaadiyaan oo ninka meel kore u saanay oo kale anaga aan ka qaadna ayagoo u gudbinaa markaas. hooyooyinka markay nala shaqeynayeen waa madalooyin badan iyo qosol badan iyo waxay nooga sheekeynaan taariikho hore oo 77 ah. anaga intaas u sii bagnaa maamooyinka sheekadooda iyo taas darteed anaga aan ku jecelnahay in naga maqnaadaan ma rabno. lacagaha ay ka hesho shaqadan Faadumo Maxamed oo u dhaxaysa 6 ilaa iyo 7 doolar ayay kaga dabari jirtay waxbarashada oo ay kaga bixin jirtay 2 caruur ah oo ay dhashay oo hadda jooga heerka jaamacadda. Maamo Faadumo ayaa dhinaca kale sheegtay in dhibaatada ay ku qabto shaqadan aysan yareen, ayna jeclaan lahayd inay hesho maalgelin ay ku sameysato ganacsi yar oo ay ku maareyso noloshooda maadaama aysan xilligan shaqo haynin. maxaa tiraahdaa hooyo macaan haddii waxna la siiyo qofka adiga halahan qaada haddii la yiraahdo waa qodob, haddii la yiraahdo iska soo celi lacagtaas lafaha iska soo celi faa'iidadana ka reebo waa nimca ku sugwa. ganacsi laga caawiyo ama shaqo hay'ad lagu darayaa iyo maxaa tiraahdaa meel soo haaqa la yiriyaa iyo ama badar wax soo kare la yiriyaa iyo adiga taasa iroon. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir ayaa sheegay inay ka maamul ahaan ay baaritaano ku sameyn doonaan sababta keentay in haweenkaas ay waayaan shaqadii ay qaban jireen sabab la'aan. Waxay sidoo kale sheegtay inay diyaar u yihiin inay dhiirigeliyaan haweenka ka shaqeeya dhismaha oo ah kuwa qabta shaqooyin adag oo u baahan karti dheeri ah. Ka maamul ahaana ay qaarkood horey ula kulmeen, balse maamulka uu diyaar u yahay inay ka qayb qaataan shaqo u abuurista haweenkan. intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma. waxaanse dhagaystayaal idinkaga tagayaa su-aasha ah: sidee loo joojin karaa gudniinka fircooniga oo dhibaato badan ay gabdhuhu kala kulmaan? nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefanada idaacadda
mahadsanidin.